arrimaha Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeedna hadda laba wiil oo geeltiro la labdasiinaya ma wareebal ka goo wareebal adna ka goo waxaan iyo Xasan Sheekh Maxamuud naga dhaxeeya ma war Xasanna waaba dooranay uma manna sheeganayno khaatuma u vote garaysay khaatuma u campaign garaysay odayaashii isimada golaha sare ee dhaqanka khaatumo yaa ugu tagay campaign headquarters kiisa oo iyagoo soo go'aansaday waa ku dooranayna abaalgudkoodii wuxuu noqday inuu yiraahdo khaatumo iyo haday tahay Somaliland maamulka Somaliland haday khaatumo tahay kor iyo hoosba wuxuu u yiri maamulka Somaliland baan raacsanahay hadda maamulka Somaliland waa kan madaxnimadiisa rabin waa kan calanka naga dhaxeeya aan rabin waa kan Soomaalinimo inay jirto aan rabin waxa laga sheegay anigu markaa ma fadhiine dhowr meelood reer khaatumo ku arkay hadee Somaliland iyo waqooyi ninka midnimada ogol iyo ka diidan waxaan mudnaanta siinayaa ka diidan inaan la heshiiyo oo midhay wuxuu ka rajo qaba annagaaba yaab aragnay inuu qanciyo inay soo noqdaan midnimada Soomaaliyeed ku soo noqdaan hadda wax kalena waa la sheegay waa under the table deals ana iyana kuwana waa la sheegay wareeyanaba aqligayaga nu qabnaa waxa ay dawladda Mareykanku garatay ee Siilaanyo markuu Washington tagay ay communique ku soo saartay ee maamulka Somaliland hadda marna ma oran dawladda Somaliland maamulka Somaliland iyo annaka wada hadalana dhaxmareen in nabadda la sii wado waa rabnaa in nabadda xaq jirka meel looga soo wada jeegmo waa rabnaa in burcad badeedka meel looga soo wada jeedno waa rabnaa laakiin midnimada Soomaalidu waa muqaddas lagama gurgurtami karo waa dawladda Mareykanka hadda tasaaslihi maaha dawladda federaaliga ee xamar joogta waa dawladda Mareykan baa saale annagu taa dawladda Mareykanku sheegayso ee igaad sheegayso ee African AU ay sheegayso taasaanu rabnaa taasay dadka iyagu u dhimanayaan Martina Xasan iyo qof kale oo leh xamar baan joogaa oo madaxweynaanahay ama maamul baanu nahay marti midnimada Soomaalida ugama nihin qarannimada Soomaalida ugama nihin hadday noqonaysa annagu kaligeey inaan ku hadno annaka midnimada Soomaaliyeedna daafacayna qarannimada Soomaaliyeedna daafacayna hadda waxa la yiri oday Soomaaliyeed iyo wiil bashax wada ciyaaray soo wiilka yar waa mid qalladii odaygii shaxda ka badiyay odaygii wuxuu arkay in xaalku aad ugu xun yahay markaas uu yiri shaxda waa tirtiray haddana inoo jeexan mar dad aan ciyaarnay say waa jeexeen oo waa dhigteen wari halkiiba uu yarkii haddana uga miis waray annaku midnimada Soomaalidu shaxdaas nooma shaxda wiilkaas oo odaygu marba u dhigaya nooma midnimada Soomaalida annaku waa nagu beeran tahay cid noo la qiimaysaana ma jirto cid nagu hanuuninaysaana ma jirto wax badan baanuna hadda ku seegnay wax badan yaanu ku seegnay caruurtayadiiba xabsiyada ku jirta laascaanood qura maahe xabsiyada Burco iyo Mandheera iyo Hargeysa caruurtayadii iyo haween jilicsan oo qaarkood iyaka oo markaa uur leh xabsiga la geeyay hadda xabsigii ku umuleen war waxaas waxna soo maray ma wax ummad Soomaaliya iyo dad islaamihi ay dadkooda ku sameeyaan ma hadda nahnah kalena waa jirta oo hadda Somaliland baan islanahay hadda waa isdhalay war haddaynu isdhalay war maxaa saana loogu dhibay war bahdaladan iyo nacaybkan muxuu yahay hadda waxba hadhay firba hadhay colaada ay dadkaas wadaan annaku intii aan u dulqaadan karnay waa u dulqaadanayna dagaalkaana lagu hayaana waa dagaal xaq ah waa diinta islaamka nooga marxaati kacay xitaa diinta kiristaanka ee Catholic yaa nooga marxaati kacay hadda Buddhiska nooga marxaati kacay war hooy xaq ayaga wixii buuhood la idin kaga dhacay wixii meegaag le muxuu ahaa kalshaala ka dhacay
wixii meygaagle ka dhacay wixii soo joogta ka dhacay dhibaatada aanu hadda ka boganaynaana waxa weeye waxaad dagaalka meesha aad la timaadeen iyo waxa aad haysaanna waa ognahay hadda 150ka teknikada ah iyo wiilasha saaran dal laguma haysan karo shacbi aan ku ogolayna kuma haysan kartid xudun ma haysan kartaan phantom amiga waskariyo 500 warfiqi fuliya 500 tawiilaad ka qorateen hadda horgaladana waa naqaanaa hadda wax inagu kala qarsooni ma jiraan waray 150 kaas sida ay ku dagaal galaana waa ognahay hadda inuusan ciidan Somaliland ah oo ciidan maamul ama qaran inuusan hayna waa ognahay hadda qaarkood inay ka baxeenna waa ognahay hadda dagaalada dhibaatada ay keeni doonto dabka aad ka horinaysaan ee ka shidaysaan sooliya sanaagiya cayn hadda wuxuu ku dambayn hargeysa iyo burco iyo berberiyo gabiilay oo aan ahayn annaku inaanu rabno dabka inaanu shidnee idinka dhexdeynaynu ka dhig cidii isla alliance bad hadda ku samaynaysaa magacaas oo dad kale aad ku gumaysanaysaan ma suurtoobayso ma ogolaanayno haddaan mid nagaga hadhaynin waxaan anigu hadalkayga ku soo koobayaa roy Soomaalinimo carruurteennii oo hadda aan ahayn sooliya sanaagiyo cayn kuwooda la kuwii Soomaaliyeed waxaa cunaya libaax badeedka badda cas iyo Mediterranean-ka la rabo inta North Africa doonyo yar laga raaco in Yurub la galo hadda ciyaal ka baxsanaya intay iskuul ka baxeen qaarkoodna jaamacadahan sakagoyska hadda noqday ka baxeen yay shaqo ileen looma haye hadda doonyahaasay fuulaan war idinku wiirsan mayno oo dhibka idin haya waa ognahay annana waana dhibaya war armay fiicnaan lahayd in aqli la isticmaalo oo shaydaanka la iska naaro oo la isu yimaado oo hadda annagu waxba kama qabno sida aan lahaa laba maamul Puntland midna Khaatumo hadda qolyaha kanu degmooyinkay degaan waa naqaan iyana waa yaqaani war kuwooda intay ku ekaadaan in la wada hadlo oo waxa inaga dhaxeeya dantu inoo tahay in laga hadlo hadda baayac mushtarka dakhliga ugu weyn ee Somaliland soo gala berberu ka soo gala xoolaha ka baxa Soomaaliya oo dhan baa berbera ka baxa hadda inta tan ismaamulka Soomaaliyeedna xoolo badan oo ay leeyihiin yaa ka baxaya berbera arintaas dhaqaalaha noqoto siyaasadaha noqoto mid walba meel bay xulaadu gaari aan la isu turi doonin aan waxba la xeerin doonin muxuu ahaa haddii sida hadda annaka iyo maatadayada loo galayo hadda adkaysan ku limitun buu leeyahay marka waxaan rabaa oo jecelahay dadka reer Khaatumo ee dalkan Ingiriiska ku nool khaasatan Midlandska aagan magaalada Birmingham Coventry Bristol Cardiff wuxuu ahaa Manchester Liverpool Leicester ma ilaawine waxaaba Saynab Xaaji Cali iyaaba ka socda Cabdirashiid maba ilaawi karno Leicester hadda dadka inaanu salaanaan rabnaa ha odaygii Xasan Nuur waa la badan yahay oo danta wajiyada una rakun baan magacaabaya waa idin ku bogaadinaynaa hawl fiican baad qabateen waa intaasoo lagaga sii dhawaado shirka talax laga qabanayana inaad ka soo qayb gashaan inaad wufuud u dirsataan inaad ka talisaan maamulka ama la dhisayo ee dawlad goboleedka Khaatumo ay dhisanayso haddaba idinkaaba bahasha dardargeliyay oo sanad iyo barkaaba 18 bilood Midlands waxay sameeyeen waa ognahay dad fiican oo rag iyo dumarba ah oo ka qayb gali karana way jiraan hadda dhibaatooyinka idin haystana waa garanaynaa laakiin danaheena guud iyana waa in mar walba maanka lagu hayaa waynu guulaysan inanka qura ma ahe waxaan qabaa inay Khaatumo hormood ka noqon doonto midnimada Soomaaliyeed iyo dib u dhisidda qaranka Soomaaliyeed inay hormood ka noqon doontaan aaminsanahay waa mahad